السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا عادة اهد مركا إمادو gurigeyga youtube banaanka aan kusoo duubo hadda guriga duubo waa kaasa hadda waxaan duubayaa hambalyo koonfur galbeed wallaahi farxad aan soo koobi karin waaye gudoomiyaalka jaaliyaalka wax ka maqnaay male boqorka xataa wuu jooga war cabdirasaaq jooga xigaa jooga war ma soo koobi karo jaaliyaalka Puntland war wax maqnaay male waxaan leeyahay Cabdiraxmaan hambalyo gudoomiyaha oo ugu horeeyay koonfur galbeed ya waa sanad guuradii labaad ee farxad ugu dhamaato khudbadeedina waa arki doontiin sanadkii maasha Allah tabaarakallah oo labaad waay hambalyo farxad aan la hadli weyn aan la soo koobi weyne ururada kale jaaliyaalka kale waxaan ka codsanayaa inay sidaas si ka fiican isula jiraan ay u noqdaan dad isku xiran because ayaga way isku xiran yihiin jaaliyaalka kale ma fi faa'iida Allah yakhliikum isku xirnaada Soomaaliis jecel noqda dad is jecel noqda sida isu jecel yihiin farxad isula nool yihiin war maamada dhan maama xaawey aad taqaaneen maasha Allah tabaarakallah alle waa isku xirka ururka koonfur galbeed oo dhan war Soomaaliya oo dhan aan dhahnay koonfur galbeed kaliya ma waa maamo qaali ah oo weligeed soo jireeneed oo na garab taagneed oo ninkan aan garab taagneed oo walaasheen ah maama xaawey waxaan leeyahay hambalyo sida u suubsateen koonfur galbeed saa u dhantihiin Cabdisalaan wariyaha ka noqday waxaan la Cabdiqaadir war kulligiinaan idhahay ma kala reebayo magacyada ma soo koobi karo waxaan idin leeyahay sanad guuro wanaagsan aniga saan la idin daba socona saan la idin la jira intaan noolahay hambalyo koonfur galbeed maasha Allah tabaarakallah kulligiin waa idin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول أنت هذا القرب من مريا وفرحة بستيح. ما شاء الله ما شاء الله. ما يصير بفيل داني ما شاء الله تبارك الله قبلو قاين يجارتين مدحضاين قدوميال كاين وأنت إسك أبنه ما كان أنا أفكار مبدروها يا دي رالي ها كيوت كيوت marka maayo waxay geeyay ana faraxa bistay sidii rabo min hada la koram aada ma hasantiin intii jaaliyood intii fidiya madax ku ay dhamaantii oo ma hasantiin markaasna si ka dhawaada hadalkan ma badsado koro hadalkan ma badsado koro laakiin aada ma hasantiin walaaliyalkan intii rijaal iyo niswaat intii hooto aada ma hasantiin koofir gabdhaad si ka dhawaada ورحمة الله وبركاته هذا لكم ببصر وأمضى سيدو كله فرحة وبإذن الله الدويسي رجينا مرة بدنا يقصون نقول دون ميكروفون إن شاء الله سيدو كله نحال كان عن ويري دونا أنا بي أو مدح هواين الصوماليين دول كان بيج كلجام أنا كيف كنتوا؟ وهو عوي وأنا بدون سيد رئيسي أورك هواين الصوماليين وابد كلي إسكويسو جاليدا هنويدين ومامد كلي يوم دارتي هواين كهواين كهواين أنا بحلين هذا السؤال في كلمة هذا كان أول تراي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول الله يمنع هواينك جاليد الصوماليات هواين لعنتت هرمر لمجال. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa casuumaanta caawa quruxda badan oo loogu soo casumay gudoomiye Cabdiraxmaan iyo asxaabtiisa jaaliyaalka Puntland boqorkeena kulli magacyadiina soo koobi karo waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin maanta inaan ka faa'iidaystaan waa meeshaan aan taaganahay haweenow adduunka ilaahay meel kastoo joogno annagaa ugu horeyno annagaan ugu dambeyn maxaa keen su-aashaas in laga soo jawaabaan rabaa horumarka waxa dadka gaarsiin waa hooyo la-aanteedna lama noolaado marka koonfur galbeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sanada anigaba aan daba socda weligeena ma ka hari dooni saanaan u daba socon doona waa barashadii ugu horreysay oo luqad afka mayo marka waxa weeye arrintaas saxanto inta kale waa saxmaysaa dhammaantiin ugu horreyn gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed gudoomiyaha jaaliyadda waqooyi bari gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland boqor maxamed sheekh gudoomiyaha ururka new generation maxamed yuusuf iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaan maamada Soomaaliyeed gudoonka hooyeenka Soomaaliyeed maam Carab waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa maalinta calanka waa maalintii astaanta iyo midnimada iyo wadajirka reer koonfur galbeed marka hees caalam baan soo xifdiyey waxaan moodaynaa ilaa markaa meesha soo istaagay marka lasku dulqaato ugu horreyn reer koonfur galbeed waxaan leeyahay hambalyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha jaaliyadda reer koonfur galbeed mudan cabdiraxmaan koonfur galbeed jaaliyadeedu waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu horreeya Belgium oo ku tallaabsaday horumar iyo wadajir haddaan nahay ururada waddanka ka shaqeeyana waxay noo tahay cabdiraxmaan waa gudoomiyaha madasha Soomaaliyeed ee midowga jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka Belgium reer koonfur galbeed sama ogtay waa gudoomiyaha madasha Soomaaliyeed waana mideeyaha ummadda Soomaaliyeed runtii cabdiraxmaan wuxuu ka shaqeeyey maanta Soomaalina isu timaado ururada intaa leeg oo runtii aad moodo inay tahay milki iyo sharaf inay leedahay annaguna waxaan leenahay horumar waara nabad iyo wadajir haddii lahayd ma koonfur galbeed oo nabada koonfur galbeed oo waarta koonfur galbeed oo calankeeda ku raaxaado
khudbadda waa soo koobayaa waqtigu aada u kooban aad ba umahadsantihiin maalin wanaagsan aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaynaa cabsaaq qaadi ex gudoomiyihii hore new generation maadaama waqtiga aad soo koobtay waxqabadka gudoomiyaha jaariyadda koonfur galbeed ee cabdiraxmaan waa kan haddeer idiin muuqda waa kan waqtiga quruxda badan uu geliyey si bulsho reer koonfur galbeed ee ku kala nool guud ahaan dalkan Belgiumka gobollo badan si halkan oo caawa farxadda calankoodii iyo waqtigoodii ay ugu damaashaadaan gudoomiye waa ku mahadsan tahay taas waa ammaan aan kuu soo jeedinayno haddaan nahay xubnaha ka tirsan jaaliyadda So